santa dabarkiyo mawdeedi santa dabarkiyo mawdeedi جنرال meeshan cadaado waaye ku soo dhawow adiga iyo waftiga kula socda iyo saraakiisha iyo guddiga doorashada dhamaantiin cadaado cidna kaama xigtaa la yiraahdaa marka waan jeclaan lahayn inaad berrina nala joogtiin iyo saa dambe iyo habeen dambe nala joogtiin oo wadanku waa barwaaqo ilaahay baa barwaaqo ka dhigay inaan marba geed qurca iska tagno kullayna dhibka badan oo xamar ka jirana kullay meeshan kama jiro oo meeshan waa meel iska nabad ah oo ilaahay nabad buu na siiyey marka waan jeclaan lahayn inaad nala sii joogtiin aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa safarkiina waxaan qiyaasayaa in wax badan lagu dirsan doono barnaamijka ciidamada iyo saad u habeynaysiin iyo xaqiijinta ciidamada iyo shaqada meeshan ka socotaan aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waana rajaynaynaa wax kastoo ka dhiman ciidamada biliiska galmudug inaad ayagana aad soo dhammaystiri doontiin iyo wax kastoo deegaanka looga baahan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin taliyaha waan u hambalyaynayaa marti sharafta dhammaan oo noo timid baan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay wadanigiina waa laga tegay caawa oo mataqaanaa jacayl iyo wax anagu aan ka duqowna baa laysku magagadinayay waa mahadsantihiin amniga iyo madaxweyneyaalka iyo dadka madaxda waxaa lagu soo dhoweyn jiray hees mataqaana wadaniya shimbir duulayuu kicin dabaabaadna yuu marin intaad xero ku daysaan fooljignaan ku daawada waqti hore oo mataqaana idinku aadnaan dhalan ayaa lagu soo dhowey jiray taliya soo dhowow taliyaalka kale iyo madaxda dhan iyo maamulka iyo dhalinyarada iyo dadka dhan oo meesha fadhiya marti sharafta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii aad u faraxsanahay in taliyuhu uu yimaado galmudug oo uu maaragtay isheeg soo booqdo taas waxay ku tusaysaa in dawladda khaasatan booliisku inay galmudug si gaar ah u soo fiiriyeen mar kasta amniga uu shaqeeyo oo madaxda amniga ay yimaadaanna waxa si kobcaya amniga iyo kala dambeynta deegaanka aadaan ugu faraxsanahay inaad deegaamadii galmudug wada tagtay khaasatan hadda aad joogto oo dadkaaga la joogto xilligan la soo gaartay amnigaas iyo kala dambeynta deegaanka ka jirta laftirkeedana waxa qayb ka qaatay ciidamada booliiska deegaanka ka shaqeeya maadaama bulshadii qaybaheeda kala duwanaa iyo madaxdii sarsare ay wada joogtay oo amniga wada shaqaynta ka dhaxaysa bulshada iyo ciidanka amnigu aad ayuu qiimo u leeyahay waxaana loo baahan yahay waxay tahay in bulshada iyo ay wada shaqeeyaan iyo ciidamadu waxaad muuqataa meeshan dowladnimada sida dadka looga baahan yahay dadkana waxaa la rabaa in loo dhaga nuglaado oo aan helno xaquuqda ay leeyihiin deegaanku inay leeyihiin inay helaan sidoo kaleeto ballanqaadyo horena waa jireen oo maaragtay deegaanku iyadana sugaya waxaa la rabaa in laga dhabeeyo oo wax laga qabto soo dhowow waxaan rabnaa wixii waxqabad adaa lagaa sugaa annagana waxaan ka rabaa taageeradii iyo garab istaagii awalna ciidanku waa garab taagnay haddana adiga waa ku soo dhoweynay waxaa la rabaa deegaan walba kalsoonida maamulka iyo ciidamada ku qabo in ay ka muuqato oo dawladdu ay si gaar u soo fiirso waana mahadsantihiin waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo caaway casho sharafka iyo soo dhoweynta iyo farxadda aad noogu samayseen cadaado aad baan maaragtay kaga mahadcelinahay meesha quruxda badan oo sharafta badan oo amniga leh oo leerta oo aan noogu samayseen waan kaga mahadcelinayaa mar koobaad iyo mar labaad mar saddexaad markii koobaad oo la igu soo dhoweeyana cadaado maahan waxaan malaynayaa markii saddexaad mar qolaa kula daartay laakiin labada kale anaa iska lahaa wiigan dhexdiisa laba maraa lahaa marka taas baa maaragtay baa aad kaga mahadcelinayaa aniga iyo waftiga ila socday waxaan u soconnay oo socdaalkeenu ahaa inaan maaragtay amniga iyo booliiska sida u shaqaynayaan galmudug aan kormeerno aan ogaano meel fiican bayna noo maraysaa idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad ka shaqaysaan amniga
la shaqaysaan biliiska amni waxba kama horeeyaan wax kasta amnigay markii uu yimaadaan ganacsiga amniga weeye nabaddu amniga weeye wax kasta oo bulshada adeegeeda ah waa amniga inaad gacan iska ka siisaan biliiska oo adinku aad maaragtay si sharaf leh uga shaqaysaan baan idinka codsanaynaa reer Cadaado aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan qirahayaa reer Cadaado gobolada markii la yiraahdo Galmudug inay yihiin gobolka koowaad oo amniga ka shaqeeyay hadda dawladda jirto iyo ayada aan dawlad jirin labadaba iyada aan dawlad jirin waa ogaa xalkeeda iyada dawlad jirtan hadda waa ark amnigeeda amni fiican baa ka jira amnigana iskama yimaado ilaahay ka sokow dadka keena deegaanka rabitaanka inuu ku yimid didaalka inuu ku yimid haddana dhalinyarada baa ka shaqeysa marka dhalinyaradina waxaan leeyahay amniga si fiican looga soo shaqeeyo horumarka aan ka shaqeyno wax walbana waxay ka dambeeyaan inaan amniga helno marka la aad baan kugu mahad celinayaa gudoomiyaha dhalinyarada wuxuu yiri soo noqnoqo yiri gudoomiyaha tagi doonin baadinta sii socota diilahayd halada indheeda arkay ma tagi doono wadii ilaahay danba soo noqnoqonaynaa waa mahadsantiin aad baan kugu mahad celinayaa casho wanaagsan xaflad wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan waa xasuus fiican bay nagu reebi doontaa diilahayd waa mahadsantiin